madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud xubna wafdiga ay hogaaminayaan oo ay ku jiraan siyaasiyiin wasiiro xildhibaano labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ka mid ah ayaa soo gaaray maanta magaalada Cadalle ee gobolka Shabeellada Dhexe socdaal dhinaca dhulka ah ay ku soo mareen ayay waxay ku soo gaareen magaalada Cadalle iyagoona ka soo kictimay magaalada Muqdisho degmada Cadalle wafdiga ay hogaaminayaan madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxa ku soo dhaweeyay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe oo maalinnimadii shalay Cadalle yimi soo dhaweynta kadib kooxaha barbaarta gaashaaman iyo qaybaha bulshada ayaa barxadda bannaanka xarunta degmada Cadalle waxa ay ciyaaro hidaha iyo dhaqanka oo ay ku soo dhaweynayeen madaxweynayaashii hore ay ku soo bandhigeen iyagoona fariimahooda dhinaca baahiyaha bulshada shiribka suugaanta ugu gudbinayay intaasi dabadeed madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa soo dhaweeyay madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxaana uu ka dhawaajiyay baahiyaha u baahan in wax laga qabto ee ka jira magaalada Cadalle madaxweynayaasha iyo wafdiga ballaaran ay hogaaminayaan waxaan leenahay ku soo dhawaada degmada Cadalle waa deegaankiinni waa degmadiinni waa gurigiinni ku soo dhawaadaan leeyahay aad ayayna ugu faraxsan tahay bulshaweynta degmada Cadalle booqashadiina aad ku soo gaarteen degmada Cadalle waxaan rabaa halkan inaan uga mahad celiyo bulshaweynta Hirshabeelle guud ahaan gaar ahaan maamulka gobolka Shabeellada Dhexe iyo midka degmada Cadalle iyo bulshada qaybaheeda kala duwan siday shalay iyo maanta oon kala hirka lahayn oo yar iyo weyn dhammaantood ay u taagnaayeen qorraxda ay u taagnaayeen ayagoo kalgacal badan u qabo mas'uuliyiintooda soo gaarayso dadaalkay dadaaleen runtii waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan rabaa ayagana inaan u mahad celiyo saraakiisha ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan siday amniga uga shaqeeyeen ee dadnimada leh ee dawladnimada leh runtii waxaan leeyahay idinkana aad iyo aad u mahadsantihiin waajibkiina saaray iyo wax ka badan aad gudateen waa mahadsantihiin Allah ciidamada qalabka sida iyo saraakiishaba mudanayaal ku soo dhawaada mudanayaasha madaxweynayaashii hore iyo wafdiga ballaaran oo hogaaminaysay degmada Cadalle ku soo dhawaada madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo caawa ku hoyin doona magaalada Cadalle ayaa bulshada la hadlay waxaana ay sheegeen in badan oo ka mid ah tabashooyinka iyo baahiyaha dadka reer Cadalle ee qabaan wax badan laga qaban doono ayna u yimaadeen magaalada Cadalle in ay dhageystaan aaraada bulshada salaan kadib farxad weyn ay noo taa maanta inaan idinku soo booqanno degmada Cadalle oo ka mid ah degmooyinka qadiimka ah ee Hirshabeelle oo ah runtii degmo leh taariikh dheer aad iyo aad aan ugu faraxsannahay inaan maanta idinla joogno waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweynta diiran oo aan loo kala harin aad iyo aad ugu mahadsantihiin ila tahay xafladdan waa soo dhoweyntii inkastoona shiribka u aqaanina shiribkana waa maqlaayay shirib lagu jawaabi maayo waa la iska warsaa wixii maqanna waa laga wada hadlaa waana la helaa ilaahay idankiis sida hore madaxdu ugu sheegtay maanta waa annaguna farxad ay noo tahay inaan idin soo booqanno oo aan nimaado Cadalle dadka ku nool iyo deegaankan noloshooda sida ay tahay si aan xogogaal ugu noqonno oo aan wax nalooga sheegay bas aanay u noqonine aan aragno dadkeedana aan dhegaysanno ayay ahayd sida madaxweyne Shariif sheegay fariimaha qaarkood shir waaba la soo gudbiyay laakiin waxay u baahnayd in la iska warsado waana la iska warsaa waxaanan rabnaa dadku wax kasta oo tabasho ah meel dalku horta iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta jooga waa wada tabasho meel lagu tabashalaayo ay ma jirto marka walaalaha waa la iswarsanayaa wixii maanta la xalin karana maanta la xalinayaa wixii berri in la xaliyo u baahanna berraan u dhigan doonaa Cabdi Casiis Okay TV Universal degmada Cadalle